dunidanna shaqada ugu badan ee bini'aadamku qabta waa xirfad. dadkuna wada IQ-goodu ma wada sarreeyo, ma wada hadda jaamacad ka wada bixi kara, jaamacadda dadka wada baxayna shaqo ma wada heli karaan. waxaa muhiimka ah inaynu baranno xirfadaha waddanka yaalla, oo dadku ilmaha haddaad arkayso inuu C grade ama D grade ama wax ku dhadhow joogo, maxaa jaamacad kaga lugoynaysaa? ma inuu kasii dhaca umayd rabtaa oo dabeetana darogada iibiyo? waxaa ka roon inaad xirfad u wareejiso. dunidanna shaqada ugu badan ee bini'aadamku qabta waa xirfad. dadkuna wada IQ-goodu ma wada sarreeyo, ma wada hadda jaamacad ka wada bixi kara, jaamacadda dadka wada baxayna shaqo ma wada heli karaan. waxaa muhiimka ah inaynu baranno xirfadaha waddanka yaalla, oo dadku ilmaha haddaad arkayso inuu C grade ama D grade ama wax ku dhadhow joogo, maxaa jaamacad kaga lugoynaysaa? ma inuu kasii dhaca umayd rabtaa oo dabeetana darogada iibiyo? waxaa ka roon inaad xirfad u wareejiso. waqtigaaga haddaad manage garayso, wax kastoo aad doonayso waad gaadhi kartaa. everything. adigoo maanta aan alif aqoon, haddaad go'aanka qaadato inaad wax barato, jaamacad waad ka bixi kartaa. adigoo aan farta sida loo qoro aqoon. أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد